recording وكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيقو مسكين كيالله سما فيلم معلن جامع مسكين oo idin la soo dhawaada ardayda qaaliga waxaan isku daynaa inuu 10 kan macnayno isagoo ku jira barmal laba ayuu ku jira waxaan jeclaan insha Allah jecelahay inaad haysataan barmiyadan horta Soomaalidu ay wada haysataa guri walba uu yaala laakiin waxa laga yaabaa inaad ka shaqaysay adiga laftaadu iyo aad dhowr jeer ka shaqaysay laakiin khaladada meesha ku jira iyo sida lagu khaldayo maanta u dambeysay dhowr iyo 20 boo soo dhacay Sweden oo dhan khalad baa lagu hoos dhigayaa khaladka inaad fahantaa waa very important waxaan isku dayaynaa inaan dhaqaajino imka bismillaah su'aasha koobaad waxa lagu yiri halkan gaarigan baa waxaad isku dayaysaa inaad dhaafto gaarigan madow waa gaarigan madow baad adigu waa kan gaarigan baad tahay adigu wadadaadi way ku banaan tahay laakiin ujeedada lagu weydiinayo waxa lagu leeyahay gaarigan madow ee bartanka taagan dhinacan midig ma ka dhaaf waxa bilaabantay ee qalinkii baa bilaabantay qof baa imaka jirtaba qalinkii soo bilaabay waa ka casaanka soo qoray war dadka meesha farafaraynaya shaashada ka daayaan qalinkii iyo taabashada hadhow dii kale meesha way buuxsamaysaa okay marka gaarigan madow midig ma ka dhaafi kartaa baa lagu leeyahay inta badan adigu waxaad aaminsantahay inaan midig laga dhaafi karin baabuurta way dhacdaa laakiin marmar waa laga dhaafaa iminka gaarigan oo kale ma ka dhaafi kartaa midig baa lagu yiri ujeedka weyn haa weeye waan ka dhaafi karaa waayo dee gaarigii iga horreeyay wakaalkaasii socda wadadana dee waa wado weyn weeyaan oo saddexaad ah marka maadaama midigtayda ay bannaan tahay haa waan ka dhaafi karaa su'aal kale ka timaada isla tan oo kale oo lagu leeyahay gaarigan baabuurta xagga midig ma ka dhaafi kartaa haa su'aashu waxay noqonaysaa haa waan ka dhaafi karaa bidix iyo midigba anigoo u eegaya xaaladdu kolba siday tahay taa macnaheedu waa maxay marbar waxa dhacda qolada wadooyinka ka shaqeynaya inay wadada bartankeeda ka shaqeynayaan markaas iyo waxay koonayaan midig mar ama bidix mar dhankay doonaan bay xidhanayaan marka ma sha Allah labadaas su'aalood bas ay ku yimaadaan haddaan Swedish dadkeena ay Swedishka ugu sharaxo duubalaneera shoroom waxaad isku diyaarinaysaa inaad shoroom codka xidha codka waa mamnuuc fiidiyoguna waa mamnuuc taabashada shaashada la taabanaya iyo qalinka lagu garanayna waa mamnuuc walaalayaal waqtiga haynaga luminina waqtigu waa very important mar kaliya markaad casuumadii heshay aan ku aqbalo qolkii soo gasho ha farafarayn iska daa marka waxa lagu yiri duubalaneera shoroom waxaad isku dayaysaa shoroom inaad dhaafto Denmarka biilan war qofka kamaradu furantay waayo war duca qabo kamarada naga xid duubalaneera shoroom Denmarka biilan waxaad isku dayaysaa inaad gaarigan madow dhaafto shoroom waa dhaafida sombafinade kaasoo ku sugan ishorfeltet haadkan imitten ee kala barka wadada waa gaariga madow vaayilar idan situaaqun maxaa ka shaqeynaya xaaladda su'aasha saxdii waxay ku imanaysaa ee ay sax ku tahay waan dhaafi karaa bay ku imanaysaa waana taata saxdii aan ringay waaniga itus baan ku yiri su'aasha saxda oo itusay iyo for shoroom idet hoogara shorfel xagga midigta waan ka dhaafi karaa okay su'aasha labaad baynu u galeynaa waxa lagu weydiiyay waa maxay faraqa u dhaxeeya labada wado ee isku dhow wadankan ugu weyn ee la kala yiraahdo motor traffic led iyo motor weg labada wado waa labada wado isku xiga mid waxa la yiraahdaa highway oo waa motor weg midna waxa la yiraahdaa motor traffic led saddex magac bay leedahay waa maxay faraqa u dhaxeeya su'aashaas haddii ku soo baxdo ha ku mashquulin in tira lagu soo saaro oo la yiraahdo war qofka qalinka wadwado qalinka naga jooji oo shaashada faraha ka qaad it is almost time to restart you have choices update and
not now siga hela kaasi ها waxba ii soo saaray raali noqda marka su'aashani markay kuu soo baxdo ee lagu yiraahdo waa maxay faraqa u dhaxeeya motor vehicle waa maxay su'aasha u dhaxeeya motor vehicle iyo motor traffic ledka marka lagu yiraahdo su'aasha saxdii waxay ku timaadaa motor traffic ledka ayaa la soo qaadaya labada motor vehicle waa laga imanayaa ama highway-ga waxaad oranaysaa motor traffic ledka wadada la yiraahdo ee labaad ee wadankan baabuurtu way iska hor imanayaan taa macnaheedu waxa weeye highway-ga baabuurtu iskama hor yimaadaan saddex fayl baa saa u siyaacaya ama afar fayl baa siyaacaya haddana doog baa halkaa mara dhexda haddana afar fayl oo kalaa soo yaacaya afar haad oo kale waa highway-ga laakiin motor traffic ledka ama wadada labaad ee wadankan u weyn ma baabuurtu way iska hor imanaysaa labadii baabuur baa iska hor imanaya ama silig yar baa u dhaxayn kara ama waabay liid yar oo dhaxa u dhaxayn kara markaasaa ku garo markaas saxda waxaynu ku doonaynaa motor traffic led wata bo in motor traffic led wadada la yiraahdo motor traffic led candidate for a coma motor the traffic bo sama shorbana war baabuurta motor traffic led gaadiidku wuu iska hor imanayaa sama shorbana ayuu iskaga hor imanayaa wada kaliya macnaheedu ama liid yar oo cadaan u dhaxayn kara ama silig yar ama labadoodiba saas u isu dhaafeen midna xagaas u ka imanaya midna xagan do ubtector at shield fatiska niveau idin bil arlog waxaad ogaatay do ubtector waxaad ogaatay shield fatiska niveau shield fatiska waxa la yiraahdaa taangiga biyaha shield fatiska taangiga biyaha ee gaadhiga ayaa wuxuu noqday log uu hooseeyay yani biyaha taangigii biyaha gaadhiga ku jiray oo waxaad aragtay dhammaaday oo wax yar ka harsan yahay iska dhuufiilabo ma ku buuxin kartaa mid noogod meer an bar of only vaten wax dhaafsan biyaha caadiga ah ma ku dari kartaa horta wadankeeni taangiga biyuhu markuu xumaado makaaniga markaan soo baranaynay biyaha un baanu foosta ka soo qaadi jirno biyo un baan ku shubi jirnay laakiin wadankan waxaa lagu daraa aalad kale oo loo yaqaano glycol maadaama wadankan baraf ka jiro barafka biyaha caadigii way fadhiisanayaan marka glycol waa maado u diidaysa habeenkii gaadhiga markaad dhigto intuu gaadhigu kululeeyahay ma fadhiisanayaan biyuhu laakiin habeenkii markaad gaadhiga tida subaxii soo fulistraado hadduu biyaheennii caadiga ha ku jiraan wadamadan biyihii way fadhiisanayaan oo tallaj bay noqonayaan illa waa qabow laakiin haddii lagu daro glycolka baasha waxa weeye biyihii bay u diidaysaa inay fadhiistaan oo waa milix wax aynkaas weeyaan waa wax kicinaya oo subaxii markaad gaadhigii istaadho ijiinkii hore uu ka istaarmayaa biyihiina waaba iska kululaanayaan daqiiqad war qofkan kamarada codka nagu furay naga baktiidhaha war yaa ilaahay yaqaan war codka xidha qof buu codku u furay war qof kasta oo adiga miyaad maygaaga arkin ka horeeya waa in labaduba kamaraduna xidhnaato mikrofonkuna waa inuu calaamadi saarnaato in kamaraduna waa inay calaamadi kaa saarnaato egasi taa macnaheedu waxa weeye iscaaj laguma samaynaysid aniguna waxa u shii waan wadi karnaa su-aasha saxdii waa tan iyo biyaha caadiga ah aan ku shubo taangiga waxaan u raacinayaa waxa loo yaqaano glycol ama dee wax lagu daro aalad lagu daro oo diidaysa inay biyuhu fadhiistaan midda kale su-aasha innaga ina qusaysa uun xafida dadka qaar waxaad arkaysaa waxay ku leeyihin su-aalahoo dhan baan akhriyaya war waqti badan baa kaaga lumaya war adigu su-aasha ina qusay hataa luqadda haddaanad aqoon wax ku xafid waxaa lagu yidhi su-aasha vilken är den högsta tillåtna hastighet waa maxay hogsta inta u badan tillåtna la ogol yahay hastighet xawaaraha ugu badan ee la ogol yahay saddexdaas hadday israacdo hogsta tillåtna hastighet waa xawaaraha ugu badan ee la ogol yahay vid boxering marka laga hadlayo jiiditaanka boxering waa jiiditaanka oo lagu jiidayo med boxer leeyahay taasoo lagu boxeringku waa laba midna waa maraad gaariga qaadayso marna waa midaad ku jiidayso xarig iminka maxaa lagu jiidayaa ereygan boxer linya
xadhigii baa lagu jiidaya marka waa imise inta ugu badan ee loo ogol yahay in lagu socdo 10 jeer baan qolkeena soo dhigay afarta qolba soo dhigay haddii gaadhigaaga aad gaadhi ku jiidayso imisaad ku wadaysaa hore ayaanu soo dhigay 30 ma dhaafinaysid haddaba bogseerinkii laftiisii baa su-aalo badan oo idinka imanaya baan dhex gelinayaa haddaba waxaa lagu yidhi imise ayuu noqonayaa xadhigga aad ku jiidayso gaadhiga aad jiidayso waa inuu noqdaa su-aasha saxdii 2 mitir su-aal saddexaad baa imanaysa haddii xadhigga gaadhiga aad ku jiidaysaa 2 mitir ka badan yahay maxaa waajib kugu ah si aan baabuur noo soo dhex gelin 2 mitir soo kamuu dheeraan xadhiggii dhexda ayaan bahal cas ka lulayaa ama raflagas leh ayaan ka lulayaa si ay gaadiidku arkaan saddexdaas su-aalood waxay ku yimaadaan bogseerinka ama jiiditaanka su-aal kalaa ku timaada gaadhigaagii waxaad ku jiiday gaadhi baa lagu yiri kadib intee in leeg baa lagu ogol yahay highwayga inaad gaadhigaaga jiido waa su-aal kaloo ku timaada taasina marka waxaanaan idin barayo cashar ahaan u xafida oo liqa halkaas su-aal baan iminka 4 su-aalood idiin iman doona kasii sheekeeyey marka waxaad leedahay waxaan jiidi karaa oo kaliya ilaa foshta oo 40 fadxadda igu soo horeysa motorway highwayga ee laga dego ayaa qasab igu ah inaan ka dego laakiin 50 kilomitir iyo 200 kilomitir iyo 1,000 kilomitir iyo ma jiidi karo gaadhiga waa mamnuuc okay waan dhaafaynaa su-aasha halkani si fiican wax uma muuqdaan oo waa madow laakiin idinku marka tiyooriga laydin soo dhigo halkaa dhexdaad dag siinaysaa wuu kuu soo dhawaanaya duuska isfenga fanester mut hulkho ayuu yidhi waxaad doonaysaa ood u weecanaysaa bidix baad ugu weecanaysaa hulkho dee innaga halkani waa madow aniga mooye si fiican iguma muuqdo mooye kaydun idin muuqdee halkaa boodhkaasay ku taallaa hulkho laakiin ma arkayo anigu vilken arden istushta risken maxay noqonaysaa khatarta ugu weyne ee denhaarsti waa quunen ee xaaladan maxay noqonaysaa khatarta ugu weyne horta boodhkan si fiican aniguma arko no inaad idinku si fiican u aragtaan hadhow laakiin hulkho halkay ku taalun baad eegaysaa waa meel tagta hulkho magaalada la yidhahdo markaa maadaama inaan si fiican u arkayn waynu taabanay waxaa su-aasha saxdii noqotay atmota defodon ubtagtamay sen waxaa dhacaysa gaadhiga iga hor imanaya inuu xilli dambe i ogaado iyo ujeedada noqotay gaadhiga iga hor imanaya inuu xilli dambe i ogaado markaa su-aashan adiga hadhow way ku caddaan doontaa markaad tagto meesha traafigo saa dhag baad siinaysaa waad soo dhawaysan kartaa su-aasha saxdaa waxaad ku xafidaa senta waayo sen kuwan kale kuma jirto wax ku xafid erey marka waxaad tidhahdaa atmota defodon gaadhiga iga hor imanaya ubtagtarmay sen xilli dambe i ogaanaya su-aasha markaa aanad garanayn ee sidan oo kale aad garan weydo halkan taabo markerinkaa saar calaamadda casaankaa saar dabadeedna iska dhaaf hadhow marka aad dhammayso ku soo noqo oo waxaad tidhahdaa imisaa taloo casaan ka saaray markigan dabadeedna intaad casaan ka saartay si fiican uga dabaalo halkan waad arkaysaanoo dee waaba ceeryaamo iyo waxbaa dhacay iyo barafkii oo saa u tuulan iyo sheeko dheer dushoor under baa lagu yidhi waxaad ku wadaa under dom khifti hollande sumbilda fisar sidan jawigu iskuba bedelaya caynkana ayaad ku wadaa gaadhiga marka waxaa laga hadlayaa su-aaliba waxbay ka hadashaaye vilken afdomhar bilisnigar war laydharkeebaad weeyaan bilisnigar waa laydharka arlam ligaste ayaa habboon at avanda framtilbobilan inay xagga hore kuugu xidhnaadaan oo aad shido kuweebaa habboon baa lagu waxaa bilaabmay qalinkii lagu qorqoray wakaa qofkii qalinkiibu halkaa ku yar qoray war dadka shaashada yar la dhaqaajinay intay qalinka sare soo qaateen la dhaqaajinayo ka daayay shaashada waxbaa ku soo qorina saddex baa markaa lagu soo dhigay laydharka barkerin use oo ah indhaha barkerinka ee caadiga ah half use oo ah leydhka caadiga ah ee aan dadka cawarin iyo heli use iyo indhaha waaweyn ee dadka cawaraha saddexdaa keed ku soconaysaa baa lagu yiri su-aashuna
sidaasay sax ku tahay markay jawgu caynkan yahay diima maaha oo ceryaan oo nin qofka qalinka qorqoraya qalinka naga jooji dhaha war duca qaado oo qalinka aad ku qorqorayso meesha naga jooji qof baa fariin laga falayo sidaa qalinkii u jiidjiidaya shaashada macallin baa xiiqsan oo kuu daalane faraha laabo islaanta shaahii keendhe dalbo anigana ha naxiijin adna ha isxiijin anigu adduun idinkama doonayo lacag cidna kama qaato liwaji laabaan dadka u caawinaya bal ardaydaa badan aan caawinayo haynaga carqaladayn jazaaka allah alf khayr markaa ismaaciil kamarada xidh codkana xidh yes waad mahadsantahay markaa maxaynu shidaynaa jawigu markuu cayn ka noqdo maxaynu shidaynaa waxaynu shidaynaa halafus laydhka caadiga ah baynu shidanaynaa helius lama shidi karo haddaad helius sidan ku shido barafkaas ayaa wuu sii caddaanaya markaa wuu ku cawaraya helius waa laydhka xoog leh ee la shido ama fuulka halkan sheekadan waa baarkeerin dadkuna baarkeerinada aqoonba uma laha waxay dadku aanay kala garanayn maanta u dambeysay habla ii sheegay waxay yidhahdeen macallin saddexdaasaa la isu soo kaayo saaray kadibna halkaana waxaa lasoo dhigay bishay ahayd baana loo soo dhigay dabadeedna waxaa la yidhi qiimadaa ka soo saar caynkan iyo caynkan iyo caynkan dee waanu garan weyno waan iska taabanay qof baa shiday kamarada war kamarada naga xidhay waayo dhagaha ayuu xoog markuu qofku kamarada shido ama uu cod shido dhagaha ayay kaga dhacaysaa walaalow naga xidh kamarada qofkaa furayo waaye waa baarkeerin qofkan kalena bal ha naga joojiyo ee wax qurquraya had iyo jeer qofkan wax qorayo naga jooji السلام عليكم. calaykum assalaam macallin anigu ayaa qadka ma furaya mise waa laga maqanya soniga ku maqlaynaba ma daawanaysid ma ini maqlooyo hadda u jeeda macallin shukran haye waaye xidh kamaradana xidh codkana xidh super intee ka xirnay baqti haa kaamiradu waa tabalo cod yes waad xidhaayaan jazaaka allah alf khayr habboon okay waxa su-aashani ay noqonaysaa horta su-aalaha markaad ka shaqaynaysaan war aayar u fiirsada oo ha degdegina imanka su-aashan la weydiiyey waa maxay inta aanan su-aashaba ka shaqayn horta waxaan ogaanayaa su-aasha waxay ku saabsan tahay hurba verkas shornig macallin tii baarkinka nooma sharaxin adoo raalle eh ya tii baarkinkii bootisay nooma sharaxin tii baarkinka may booday haa usoo celi adoo raalle qara la xisay waad mahadsantahay baaraka allah fiik mabaan iigi bataa jazaaka allah khayr okay waxa la weydiiyo la yidhi marka hore waxaan akhriyayaa waxaan fahmayaa horta waxay ku socdaan waxa la yidhi du barkera ofta dimbil gaadhigaaga waxaad inta badan ku baarkin garaysaa darfeg market halkaa calaamadaasi iyo ok tilog stoflor waxa la yidhahdaa veg marketku waa kan sare oo biidoo keliya tilog stoflorkuna waxa weeye waa kuwa la hoos dhigo waa taa aviifta ku qoran tahay 8 ilaa 20 8 ilaa 15 iyo tan hoose casaanka ah kuwa waxa la yiraahdaa tilog stoflor oo wixii la raaciyay la hoos dhigo yeelar ay ka shaqeynayaan baa leeyahay ca eedan eeg baydan waa tan eedi waa tan haye hadaba waxa la weydiiyay bofilkan afolian the teether xilliyadeebaad fodu barkera ayaad dhigi kartaa daar halkaa uutan atbitaala aviifti adigoon wax lacaga bixin c b bal haddaba waxaad eegtaa bidana eeg baa layidhi okay haddaba halka u sarreysa waxaa ku taalla bisha halkaa madow way idinka qarsoon tahay waana way iga qarsoon tahay halkaa madow waxaa ku yaalla bisha magaceeda xilligay tahay laakiin maalmihii waa kuwan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 intii ilaa 11 bishii oo dhani waa tan afartan baa lagu kala dooransiiyey wuxuu yidhi kani waxaan dhigi karaa
afarta August baan dhigi karaa marka ay tahay saacadu 15:00 saddexdaan dhigi karaa afarta August bishana waa wada August kabigeedu halkaas saree madoobi waa August kana wuxuu yiri 13 August baan dhigi karaa saacadu markay tahay 18 kana wuxuu yiri 19 August baan dhigi karaa saacadu markay tahay 16 kanu dambeysana wuxuu yiri 25 August baan dhigi karaa saacadu markay tahay 9 si marka ay u hesho xaqiiqda ama waxa jirta halkan marka bidii waxaan isla garanay inuu baarkeerin yahay laakiin mar haddii baarkeerin aviifti la hoos dhigo waxaan ogaanay meeshan horta in lacag la bixiyo aviifti waa lacag goorma ayuu lacag yahay 8 ilaa 20 maalmaha caadiga ah ee Monday Friday ama Isniin ilaa Jimce wuxuu yahay Allahumma salli ala Muhammad 8 ilaa 20 waa lacag laakiin haddaan 20 imaado oo wixii ka dambeeya oo aan midna maalin Isniina waxaan imi 20kii waxaan su'aal baa imanaysa waxa lagu yiri maalin Isniina baad gaarigaaga waxaad soo dhigtay halkan 20kii goorma ayaad ka qaadaysaa maalinta kale okay salaasada 8 subaxnimo baan ka qaadaya inta kale oo dhan waa free way sida loo fahmaa su'aal way imanayaan oo siyaabo kale ay kugu imanayaan waxa lagu yiri maalin Arbacada baad waxaad soo dhigtay gaarigaaga 5tii subaxnimo goorma ayaad ka qaadaysaa 8 subaxnimo ka qaadaya 8 wixii ka dambeeya waa kharash waxa lagu yiri maalin Sabti ayaad gaarigaaga soo dhigtay 15 Fenton waa Sabti qoyskan li waa Sabti xaduna waa iska casaanba waa la yaqaana marka imka xadi kuma taalo laba maalmood ba meeshii ku yaala saddexdii week saddex cisho weeyaan Sabtida oo qoyskana axad oo casaana iyo 8 ilaa 20 oo ah Isniin ilaa Jimce marka imka Sabtida xilliga la goliyo waan arkay Isniin ilaa Jimce xilliga lacagta bixinayo waan arkay intaas waa wada lacag laakiin axad oo kale waa free oo waan dhigan karaa axad bila lacag baan ku dhigan karaa waayo axad aviifti kuma yaala axad kuma taalo inta markaan saa idin ku sharaxay halkan hoosta hadana waxa la yiri waa mamnuuc baarkeerinku maalinta Tuesday ee Khamiista waa mamnuuc baarkeerinku inta u dhaxaysa 7 ilaa 10 taana waa inaad ku xisaabtanto oo aad ogaato marka haddaad 5 cisho halkaan isticmaado waa 8 ilaa 20 may lamaba dhigan karo baarkeerinku maalintaana isna wuu soo galaya marka si aynu xaqiiqda dhabta u helo ee aynu doonayno si uu inoo fashilo maalinta halka layna siiyay tasaxda ay tahay si aynu helo idinku inta badan de bahalkan uu idin yaala guriga waad haysataan itus la jawaabtii waxa la inooga dhigay 13 August oo ah 8:00 ama 18 hadaba 13 weyn halkan ka doonaynaa 13 halkuu noqonayaa 13 wuxuu noqonayaa halka 13 markuu halka noqday waa maalin loo daaga ama Sabtiya Sabti buu noqday Sabti waxaan dhigan karaa Sabti يكاد هوا سبتي وياك فيلكم فولينتين فود باركيرا دار وتنت بتالا أبيفتي سي ها حلقات ديجان كرتاسي أنا دوح العجا وبحين باليري أوكي سواشي صح هاي نوعي نغطي صدحية طبنكا أغسطي أو سيديدية طبنكا يس ماركا أوغادا هل كان sabti waynagan helay oo sabtida maalmaheedu waxa weeye 6 iyo 13 iyo 20 iyo 27 intaasiba waa sabti axaduna waa 7 iyo 14 iyo 21 de jadwalkii bishii iyo 28 haddaba sabtida goorma u dambaysa lacagta waa 8 ilaa 15 ayaa lacagta 15 u dambaysa 15 wixii ka dambeeya waa free aan halkan muxuu yiri 18 waan dhigan karaa de waa runtii iska daa 18 iyo 16 ku dhigan karaa oo 17 ku dhigan karaa
oo 18 ku dhigan kara tanna nama qusayso tan tuushtaago inama qusayso oo hadday tan qusaynayso tani waxay ka dhex shaqaynaysaa 5 cishay ku dhex jirtaa laakiin inaga tan bayna qusaysaa sabtida ayaa ah 13 wata waniga halka ka helay 13 August iyada ah marka goorma abiiftiga ama lacagta u dambaysa 1500 laakiin 800 waa dhigan karaa su'aashuna saasay sax ku tahay su'aal walba intaanay ii soo gelin oo aanan aqriin waa inaan fahmi karaa maanta ardaydii soo wada dhacday badankoodu waxay weydiinayeen waxay u dirnaayeen ay ku soo jabeen waxa loo yaqaano traffic regularka su'aashani waxay leedahay bal halkaa uun eega inaad su'aal walba fahanto mobile telephone baaba ku yaala halkaa mobile telephone hurbo verka shornik siduu saameyn ugu yeelanayaa wadistaada oo mambrota in mobile telephone haddaad ku hadlayso telefoonkaaga namanshore bil markaad gaariga wado haddaad telefoon ku hadlayso siduu saameyn kuugu yeelanaya adigu caqliyan intiina su'aashan ka jawaabin laba maskaxood miyaad leedahay ilaan waxaad doonaysaa inaad gaarigii kaxayso oo hadadkii iska eegto oo ciyaal soo boodaya iska eegto oo dad waaweyn oo tallaabaya iska eegto oo ummadaha iyo dadkan aynu u nimi aad badbaadiso adiguna naftaada badbaadiso ubadkaaga si loo badbaadiyo laakiin markaad telefoon gasho I love you habibi aqadadii maxaad ii samaysay may bari dhar nooceed xinaysaa xafladda oo iska mashquushaan oo dabeedna qab aad ku war hesho ilaan waad baxdaye dee waxa weeyaan shil baa dhacaya marka sidaa darteed baa la yidhi ayay waddankan Sweden iyo wadamo badan oo Yurubtana iyo meelaha Mareykan iyo meelahan oo dhan dee aad loo adkeeyay in mobilada lagu hadlo oo la isku ganaaxayaaba waxa lacag u dhaxaysa 3,000 oo karoon ilaa meelaha qaar 5,000 lacag la sheegay aniga wali la iguma qaban ilaahay ma tusin waana islaaliya laakiin dad badan baa xoog telefoonka isticmaala yani waad baxaysaa su'aashuna saasay sax ku tahay macallin horta raalli ahaa qof gaari wada horta ma u malaynayo telefoon inuu ku hadlaayo horta aniga xamdi ahaan 8 sano gaari raacdeynooya marka asaaba qofka shanigiisa iyo cabsidiisa haysataaba ma fahan way ku hadlaan walaal may way ku hadlaan walaalo qaar baslayaalaha ku dhacday oo qaar taksiilayaalaha lagu ganaaxay way dhacdaa oo ninkan wuxuu isku haystaa inuu yani heer gaaray oo dee baylot oo kale marka garaadka dadkay ku xidhan tahay waxaan waad maasan tahay laakiin way dhacdaa walaalo oo maalmo dhaweey xataa dad waxaa inta badan la arkaaba la dacweeye xataa oo iyagoo telefoon ku hadlaya baslayaasha xataa qaar mar dhexdaasa la soo geliyey muxuu ahaa isagiyo telefoon ku hadlayo qayliyo xaaskiisii la hadlaya laga duubayba shaqadiina sidii baa lagaga buriyey marka way dhacdaa basna wuu ilaaha naga najiyo kulli ana cabti gooni ugu furan markaas maba qaban karaba marka waad maasantay walaashay marka iminka su'aashii maxaa lagu yidhi mar haddii telefoon marka taan ka hadlaya waxa weeye war horta marka hore halkaa ciwaanku wuxuu qeexayo faham ma mobil baa laga hadlaya ma milyo baa laga hadlaya ma traffic regular baa laga hadlaya maxaa laga hadlaya wixii waa maxay wax walba intaanad u dheegi su'aasho gelin horta halkaa sare faham aanu soo noqon man hor samre wuxuu xumaynayaa ama wuxuu iga qasayaa ubsigti backcoat aragtidaydii xagga dambe muraayadaha aan kala socon lahaa iyo sidoo isbeegalna iyo muraayadaha hareeraha oo dhan ayuu iga xumaynaya mar waxa lagu farayaa intaad gaariga wado inaad muraayada gudaha eegi karto oo xagga dambe kala socon karto baabuurta ku dhaafaya iyo kuwa kale iyo labada muraayahada midigta iyo bidixda inaad la socon karto xagga horena aad loombalaan erig samayn karto oo xagga hore meel fog wax ka eegi karto laakiin haddaad telefoon ku mashquusho su'aasha saxdii waxa weeye wuxuu iga xumaynayaa ubsigtiga ama aragtida backcoat xagga dambe iyo sida isbeegal labada dhinac qof baa furay ee codka hala xidho waa soconaynaa halkan calaamadda yar hadday kuu soo baxdo calaamadaasi hadday kuu soo baxdo waxaad ka soo dhex baxday meelo calaamaddaa la dhigo oo aayar loo socdo
waa meesha lagu socdo toddoba ayaa lagu socdaa toddoba xataa 10 maaha waa meel suuq dhexdiiya waad dhex maraysaa qof su'aal baa ku imanaysa calaamadaas inta calaamadaas xariiqaasi saarneen baa lagu leeyahay halkan ma geli kartaa ha waan geli karaa laakiin waxaan ku soconayaa sida lugeeyahoo kale ayay su'aashaasi noqotaa iminka se waxa lagu yidhi calaamadii way dhammaato suuqii baad ka soo baxday hee ciidima kaa leedahay baa le yaa kaa leh ayaa iminka su-aashani tahay yaa kaa leh dee mar haddaan meeshan cidhiidhigaa ka soo baxay waddadan weynaan gelayaana baabuurna xaggan u socdaan dee qoladaa saayiga leh xaqiiqdu waa saasun bay ku timaadaa su-aasha duuska shoora raag faraam tooskaasaad u socotaa baa lagu haduu vinix bilgmut nogot traafigi koshnik cidima kaa xaq leedahay isgoyskaa ha labaduba wayga leeyihin hoogar iyo fanester su-aashuna saasay sax ku tahay yoomu trafik from boda fanester hoogar ha trafiga midigta kuwa xaggan sidaan u socday xaggan ka imanaya waa kuwa iyo kuwa xaggan ka imanaya labaduba wayga leeyihin maadaama anigu wada yaroo cidhiidhiyaan ka soo baxaya xaafada dhexdooda oo meel lagu adeegto dhexdeeda codka xidha cod baa furan waayo codka markaad aad furtaan aniga dhegahayga samaacadii dhegahan xidhanay wuu ugu qaylaya kaanu codka xidha waxaa lagu yidhi vod informerar veg market om baleeg su-aashan isay u jiricsan tahay muxuu ka sheekeynaya informerar muxuu ku ogeysiinayaa veg marketkani kuwani labadani maxay ku ogeysiinaya walaal qof baa cuntana xataa cunaya naga xidh ilaahay aan kuu ducayno walaale naga xidh microfonkaaga war microfonka kaa horeeya waa inuu microfonkuna ega saarnaadaa sameecadana kamaradana ega saarnaadaa iminka qof baa raashin iska cunaya qof kastooba mas-uul baa tahay kullukum raaci wa kullukum mas-uul can raaciyati walaalayaal halkan dadkii baa soo gelaya waan qaabilayaa xaggan hawshan kalaan ka wadaa xaggan ardaydii baan isleeyahay bal su-aal walba su-aalaha kale ka imanaya xataa u sharax waayo maanta aad baan uga cadhooday 720 qof oo ku soo dhacay oo macalin igu soo wada cabanayo oo hablo u badan oo qaarkood waalid yihiin hooyooyina oo doonaya war heedhaa sameecadda naga xidha hibaaq miyaa ها معنا أنا مرة كلها الله علشان إن دجاها مركز لوضع كوجو ذي تشران هذا كوجو لكن حتى مد استعمال شو كايران يا أي لذا كوجو صل عز balwaan igaa ka saaray haye balwaan ka saaray wad dad badan baa qolkii haddana soo gelaya intaasoon ka qabanaya kolba iskabisihaar أنا سعود كاحرة وبنايها قصبيها okay dee waxa lagu yidhi muxuu ku ogeysiinayaa dee muxuu ogeysiinayaa dee haddii calaamadaasi hadday dhacdo horta kuwan buluuga madmadow inta badan 30 baa la geliyaa wadooyinna kumeel gaaraa la dhigaa waa hastikeed waa surcad kumeel gaara maaha wax weligii oolaya markay hawshaa ka dhamaystaan waddada ayay ka qaadaan marka muxuu ku ogeysiinayaa dee wuu dhammaaday wixii markii hore 30 baa lagu soo dhigay markaad halkan soo gaadhina waxa lagu dhis wuu dhammaaday wixii marka horta halkan waa wax dhammaaday laakiin sideen ula soconaynaa markaa recommenderaad baa la yidhahdaa hogasta waa kaa recommenderaad magacaa ku cafid ku meel gaar ahaan weeye hogasta hastighead iyo larinta lengare intii loogu talagalay mar dambe ma sii shaqaynayso weye wixii loogu talagalay ku meel gaarka ah ee meesha lagu dhajiyey way dhammaatay ee la soco weeye marka halkaa wax ku xafid yeelarinta lengare halkan kuma taalo tan kuma taalo yeelarinta lengare tanna kuma taalo markaad inta farsamada waxaan wax ku fahamsiiyaa dadka luqadu dhibtay ayaan idhahdaa wax isku toosi oo halkaa ku toosi marka halkaa ku xafid shantan kalena ha ku dawakan dadka qaar waxay odhanayaan yonarmay et vegarbet amroode haye halkan buu haddana dhaqdhacaya tan baa haddana gelaya haddana tan kaluu gelaya haddana maxaad u xiiqi su-aashan gebigeeda saad u xafido ta saxda ah un ka qaado haddii la doono hadhow sii weeye hadda
ee baa lagaaga dhigi karaa daba boodbood iyo la soco halka kolba laga dhigo halkan su-aashan in badan baad qolka soo dhigtaan waan ka sheekeeyaa haddana waxaad moodaa dadku inta badan ma fahmaan horta waa calaamadihii mamnuucii su-aasha lay weydiina black freudka va in a perfect market war calaamadani maxay ka dhigantaa lagu yiri calaamadahan waxaa la kala yidhaahdaa yaamna iyo uu yaamna waa tiro kisi waa tiro dhabana yaamna waa wax siman uu yaamnana waa tiro aan sinayn waa 1 3 9 7 13 11 waxaa marka ay tani imika sidan tahay liidkaas xabadda yareed iilkaas sare iyo xabadda hoose ee dheer ay tahay waa tiro kinsiya laakiin hadday double tahay 2 iyo 2 hadday tahay waa sheeko dheer oo waa kinsi waa dhaban marka su-aashani maxay sax ku tahay inay kalena way leedahay oo la yidhaahdo yana uuda datum baa la yidhahdaa taana waa la yidhahdaa uuda datum oo uuda datum waa tirada kinsiga yaamna datumna wata yaamna datum taasina waa tirada dhabanka ah marka su-aashuna saasay sax ku tahayo for buyut at barkera waa mamnuuc inaad ku baarkin garayso fordon gaadiid bo dog maalin baa lagu yidhi mad-uuda datum ay tiradu kinsi tahay haddaba la socda dad badan baa igu dawqiyo macallin wasaan macneeya haddana ma fahmaan dadku haddii calaamadan guryaha qaar haddaba kala fahma calaamadan dadku way ku dawaqeen war guryaha aad baarkeenka hor dhigaysaa guryaha qaarna waa tiro kinsiyo waa 1 3 5 7 9 lambaradoodu way isku xigaan waa wada kinsi qaarna waa dhabanoo waa 2 4 6 8 10 12 14 16 17 20 marka koonihii aad iminka dhigi lahayd baad calaamadan ku aragtay mamnuuc ma dhigi kartid la socotay kirooyinka kinsiga halkooda ma dhigi kartid qofka qalinka qorqorayo walaalow laba isku heli maysid anagoo kuu shaqaynayna haddana naga daa qalinkan aad qorqorayso shaashada faraha ka qaad xagga sare tagayaan qalin bay soo qaadanay waxa qalinku halka ku yaala note baa ku yaala wata halka qalinku dhagsiinaya uu soo qaadanaya qofkii markaas uu sunaya shaashadii taataabo markaas uu qalinkii ka marayaan iska jooji mooska faraha ka qaad macna qofkii qoray anaa ku soo gudbi doono ma arki kartaa ha bas soo sheeg khayr allah ku sii wala tuura qofkaas qof xasida waay automatic loo tuura bas soo sheeg macalinka la shaqay khayr allah ku sii wallahi waxaan idin hayaa wallahi oo billahi been idin sheegayo nin weyn oo salaad ka soo baxay waxaan idin hayaa in ay dad inama ay sheegay dhalinyaro waliba oo akhlaaqo waalid fiican dhalay qaar baa ballan ku qaaday intay qolkaas soo galaan ina mar kasto la soo galiyo ay carqaladeeyaan oo yiri macalinku kibir iyo magac baabu ka qaadayba meesha hatta maxay keenayaan xasida ku jira macalin xasida ku jiro laakiin insha Allah gabadhana nala shaqeynaysa khayr Allah siiyo automatic u soo sheeg wala tuura qadkiisa insha Allah marmarna qofka gacanta way kaga dhici kartaa laakiin hadduu markaa qofku mar walba ku celiyaynu eeganaynaa markaas anigana waan ka tuuri karaa hataa qofku waan tuuri karaa aniga waxaan isu quurina wad macalin nawd insha Allah faa'iideyskaada la diidan yahay khayr Allah siiyo dadka khayr Allah waayahay calaamadan walaalow hadday kaa soo horbaxdo marka hore waa saambuusaha kaliya hoos u jeeda kuwa kale kor bay wada jeedaan ee digayaashii waxaanay ka digaan 250 mitir ilaa 150 mitir kadib laakiin kan dhammaantood uu ka awood badan yahay halkan iskuisyadoo dhan buu ku yaalaa rondeelada oo dhan waa ka ku yaala rondeelka oo dhan markaad sii gelayso markaa saambuusaha kaliya horjeeda waana madi oo waa keligii oo walaalma leh waxaana la shaqeeyay ilkii jaamaco dhulka ku yaala okay mar haddaan calaamadan arko anaga ka soo baxo horta marka horeba waxaan ogaanayaa inaanan xaq lahayn oo gaariga iskuiskaa marayo iga xaq leeyahay waa la iga xaq leeyahay sideedaba laakiin sida istarta maaha istartu waa taayirada ku qallaji dhulka laakiin tan waxa weeye waan soo gaarigii oo rulaynayo soo dululxiyaan imanaya meesha haddii aan wax baabuur ku jirin oo aan bidix u weecanayo meel fog baan iska sii eegayaa bidix iyo midig gaari kuma jiro markaasaan wareegaya waa ku soo celiyay duca qabi waa ka haddana soo dhigay markale
marka waxa weeyaan marka waa inaan dad badan baba soo galiyeen marka calaamadan iyo istabta kala saara istabtu waa taayirada ku qallaca dhulka ama gaari ha socdo ama yuu socon laakiin calaamadan waxay kaga duwan tahay hadaan wax gaari jirin midig iyo bidix way iska haday laakiin baa waramarayaan xaq ma lihideystaan maxaa leeyna weydii duuska shoora raag faraan ivek caution tooska soo socota baa lagu tooska traffic signal aan urfakhun traffic signal baad washo meesha ku yaala waa kan traffic signal ku waa kan ma shaqeynaya lagu haddaanu traffic signal ku shaqeynin iyada awoodii la tahay haduu fording split mutnogot traffic and caution wax gaadidii makaaleeyeen bari de sootan ba la sheegay inaan xaq ma lihitahay xaq ma lihid weeyaan ha waa la yeelay oo yaay gale markaa sub aan ka jiida kana booda fanester iyo hoogar labaduba way galayeen ka xaggan ka imanayana way galayeen xagga ka imanaya saa u socda ka xagga kale ka imanayana orto mooskeyga ma la arkaya baladaayina dadka weydiin la arkayo qofaad ها معلم labadaaba way galayeen marka saa ula socda laakiin su'aal kala timaada oo hadhow idin khaldi doonto maanta inaan baa ku soo dhacday su'aashan oo kala loo keenay waxay dooratay midig iyo bidix baa iga leh laakiin su'aasha waxa ku dhic jirtay samt go'aande lugeeyaha ayay ku dhacday ha haddii marka ay hoogar iyo fanester oo qura tahay tan bidix iyo midiguna haday tahay wax kale ku jirin midig iyo bidix dooro laakiin iyo maca lugeeyaha haday ku jirto dadkii lugeynayay waa inaad taasi doorataa lugeeyaha halkani waa wada laga shaqeynayo wadadan marka laga shaqeynayo wadadii awal markii hore cadaankaas ahayd cadaanka halka ilaa iyo cadaanka kale lagu soo durkay ahayd wadadu halkaas la dhex mari jiray haadka kale wuxuu ahaa halkan ilaa cadaanka laakiin imka wadadii baa laga shaqeynaya dabadeed mar haddii wadadii laga shaqeynayo haadkii uu soo durkayaayo iminka cadaankii hore shaqeyn maaye xariiqan casaanka noqday oo guul noqonaya huruud ayaa meesha la dhigaa marka haadka dambe ee jiriidka ah ee wadada laga shaqeynaya ay sameeyeen ayaa la raacaya ujeedadu waa aynka adiguna waxaad isleedahay haadkaagii raac cadaankii socon maysa ilan wadadii way soo durugtay intaa waan ku fahamsiiyey firkan liiya iska dhuufooliya liiyaheebaad raacaysaa idan harsiti waa quunen liiyahe dabadeedna halkan waa lagu soo koobo waxa lagu yidhi dom orange varide kan kuwan orange kaan raacaya kuwana vit bay yidhahdeen kuwa vita cadaanka labadanu ninoo kala door kaasraha gelinba ma orange kaad raacaysaa mise cadaankaad raacaysaa su-aashuna wanigii kuu sheegay waxay sax ku tahay orangeku waa huruuda mar haddii wadadii laga soo durkay oo wadadii ilaa halkan calaamadan ku taalla baleeg bilqasabka ah waryaa xaggan mar baa lagu yidhi wadadii markaa waa haaf baa lagaa qabsaday marka taa cusubay jeexeen raac oo laakiin liidka huruuda ah raac halka la dhigay taayirada xaggan kale dhinaca ka mari halkan waxaynu arkaynaa inay tahay waddo tareen waddadan tareenku egeskaa markay tahay egeskaas oo keliya hal tareen baa halkan mara waa kan tareenka ku sawiraya dhulka waa kan hal tareen baa mara laakiin hadduu halkaasi 6 tahay oo laba kale hoosta ku yaalaan laba taleer ama wax ka badan baa mara faleera maxaa layna weydiiyey marka intaas sii gartay ayaan ogaaday baan halkan isweydiinaya horta su-aasha lay weydiiye waa maxay masjidu istaana inaan dubaasera yaan veeg ma qasab baa inaad istaagto intaanad masjidu istaana ma inaad istaagtaaba inaan dubaasera yaan veeg inta aanad yaan veegan goyn ma masti inaad istaagtaaba yuude oo de istaba meeshii ku taale ha istabta maargaysid walaal waa kaa qofkii soo dhigay haddana soo qoray وانا خير الله سي قفكاسي معلم waxa qofka nool fodis wuxuu wataa labarkiisa wakaa leaderna ku soo qoray halkaanka nool fodiotta qofku wata aan weyneeyay mala tuuri karo tuura baan daktur
macalinkaa tuuri karaa aniga tuuri karaa inta hagga hala geeyo bas wayda yani iyaga horta walaal waxaan u maleynayaa in xumaan ka wadin waxay isleeyihiin malaha weyneysta markaas uu kaga dhacayaa baan maleynayaa kaanta anigana ima soo wada weynaanaya sug hal mar gacanta waa ku dhici karaa laakiin abba macalinka ilaa casharka nuu sharaxayo maanta dhan waa qaybinaya ma fahamta ما إنك تور عادي ويجو لا العاو كمش هيك نسجع ما في أنا ما وجانا كنا قطيس كتور iyo qofkaas Allah barakeeyo إن أنت آيفون كوضع تيجي لبيب كحلنا كاميرا تستحد yes dadku wax ma fahmaan baa loo sheegayaa way soo taagan yihiin saada iPhone ka xidho gabadha okiyal ka xidhana sirta jirtaana iska xidho halkan maxamed kariima isagana samee waxa u furan shaashada u furan والله معنا dadku ugu ciyaaraya ka buuxo hadda muuday wada galeen hadhowna way ka baxayaan wax yar هاي ولي gabadhan kamarada muraad xirmeen naga xidho ilaahay kharaasiye kamarada walaal xidh bal kamaradaada xidh Allah new share my more info ها gabadh ma wiil waay ma kan si fiican u arko warniga iska xidhta bahash wadan dhageysanaysa dadkood ku adkeenaysa 10 kanaad ku xanibay walaal kamarada furan xidha aniga laftayda ma taqaan hadda yarkii baan soo gelin lahaa yarkaas tuuri lahaa qofka way inaan qof walaalkayo Soomaaliya meeshan isna wax u soo doontay oo wax doonaya inuu barto haddana la tuurano sharaf maaha laakiin wallahi mararka qaarna imika waqti badan bay naga cunayaan yada macalin hookada dambe soo galeysad qeyr Allah ku siiyo qof gacan yaro oo kula shaqeynayna haduusan jirin iska mamnuucan ku dhiilaayna casharkoo dhan ma fahanta hadda wiilba iPhone wata ayaa live codku wuu xirtay laakiin sama fahmin una fiirinayaa haawna fiirinay oo kay mag xidhay ka war hadda xirtay illa maanta ogaan bu qofkaas Allah qofkaas xuma xaalad ku hayna hadduu dilqa ku xidhay ka war illa maanta uu eegayo madaas magac ma noo soo baxay iPhone ana soo baxay inuu iPhone soo baxay ha laga yaabo qofkaas inuu garanayn baa laga yaabo naga cabsada Ilaahay ka baqa inaanu garanayna waa suurtagal isha bini'aadanka cudurkay keentaa cudurkii idin ku dhicina Ilaahay ka baqa aan wax aan faa'iideysano naga dhaxaya dadku ma wada garanayaan laga yaabo ay tiigin inuu ku liito markaa idinku iska wada xaroon waxa laga yaabaa inuu garanaynin okay waan isku day hadda waa inaad mar wada gashaan moodka anaan yar kal wiyo inta yare haywa okay halkan waad arkaysaan halka calaamad cas baa soo taala calaamada cas waxa weeye waa ankle rigtad ama waa jidkii kaliya ee la geli karin tooska hadaan u socoysiraado sidaa darteed bay halkan calaamad ku dhajiyeen baaburkan dabadiisa oo lagu leeyahay waa calaamadii bilqasabkii dumosti springatil hogar waad ku qasbantay inaad midig u waacato waayo tooska ma geli karno markaa su'aasha la weydiiyey Violer Ikoshnik war isgoyska maxaa ka shaqeynaya lagu isgoyska maxaa ka shaqeynaya su'aashuna waxay sax ku tahay waa inaan weecdaa waatande yo must springatil hogar waa inaan midig u weecdaa su'aashu saasay sax ku tahay laakiin markaad imtixaanada ka shaqeynaysaan marka hore jawga eega meel walba eega wax kasta iska saxa markaa su'aasha ka jawaaba laakiin haddaad tirado wallahi waan isku toosinayaa oo kaa ku dhifo waxba idin hagaagi maayo halkan waxa laga sheekeynaya calaamadaas laga sheekeynaya oo ah inaanad intaad toos u socoto halkaa dhexda markaad marayso aanad bidix u weecan karin markiiba marka waxa la sameeyay wadooyinkan imka Yurub heer baa la gaaray in la fudaydiyo oo caloosha loo yeelo dhiicada oo ninka doonaya inuu u weecdo xaggani
وإنه هالكا دي على مرادي وددي كدجا وكدينا موتور فيجي أما ماشي هوس مرا أما دول مرا ودده هالكي كسيسو أو كصبحة وتعدي حدا الجولة شيء على مدي ممنوع الجولة ما فو أنت إسرائيل في الفناستة وما هو عنك كتير فناستة مركز سامر كي هناك أو فعني بان هالكا سوق جليا اللهم صل على محمد فرحية ما حي سوق ريسان أنت فرحية لا يرادو حبي سوق ريسافون قاعد بيتاجت بس هذا الورم واحد فرحية مياه ليسا اوكي واسك سoconnayna waxa lagu yiri hadaba su'aasha halkan ay noo soo dhigo inuu doonayna markaas aynu helo far for bigger man maxaa loo dhisaa soo kalade Isbaanishka Svengar waxaan Swedishka loo yaqaano luqadda Swedishka Isbaanishka Svengar wadooyinkan caynkana loo yiraahdo si builder ee sawirkan baa maxaa wadooyinkan maxaa loo dhisaa baa lidii wadooyinka caynkana ee caloosha maxaa loo sameeyay de waa fudaydin waxba la fudaydinayaa oo intii la isjeeri lahaa la isku dhici lahaa waatan for administrative riskena si khatarta loo yareeyo for all financial isfeegande traffic wax gaadiidkii bidixda u weecanayo oo dhan ee bidixda markay siday wadada u socdaan bay wada bidix u weecanaysa dabadna uu ku laabayaa oo dabadna kii dhaafayay baa jiiraya ama waa la isku dhici jiray barigii hore nimankani dee maalinba say u fakarayeen ayay soo saareen wadada loo yaqaano Isbaanishka Svengar ama waa wadada ay diicada tuurta markaas aa wada soco markaas aad dooranaysaa tani baleeg tanba way u dhowday oo dadku way ku qaldamayaan for underlet from coblink head si aan u fariidiyo ereyada underlet iyo ambaasa iyo waa lagu qaldamaa waayo waxbay macaanayaan marka labadanba waa at underlet laakiin imika tasaxdi waxa weeye for administrative risken ya khatarta halka inta ku raaca halka ku xafida su'aashani wax sawir ma leh dushor i 30 kilometer tiimar صدبات قوة صعب ودي ار توت فيغلوب توت وددو وا انجيج هذا برف سو مرتين امتحان سو مرتين وادركتين wax kale imika wadadu waa qarax baa lagu yiri waa wadadu markay qarax tahay ay qalashay wadadu bromstraka yani breegi marka la qabto iyo masaafadii uu jiidanayo ardo سيرك 6 متر و6 متر بو نقونيا بaa بريك marka la qabto wadadiyo saaqaraxa oo waxliyada kulaylaha iyo waxa sameeyay motorku de wax qalaan hadii breegi la qabto 6 سنتيمتر 6 متر buu noqonayaa bromstraki kurlong breeg bromstraka undo oo karastake 1 kilometer tiima imisuu noqonayaa hadii aad bromstraki uu kordho oo surcadi markii hore 30 bay hayday 90 kilometer hadii aad ku wado imisuu bromstraki noqonay hadaba waxbay googooyaan odayga Abu Jaad laakiin su'aashu waxay sax ku tahay 54 marka su'aashu su'aashaas waxaan u maleynayaa biikaada hadda moolkeeda waxbaa lagu baadi doonayay wixii lagu baadi doonayay lix sagaal ku dhifo wey macallin 6 ku dhifo exact 6 ku dhifo wey waa run saasay ku imanaysaa waan filayaa 54 soo maaha waa 18 mara سوق ما يوكلان قوي رفته كالندر كي واكن دي بدارة معها سوق ما يوتبليك هذه 6 ku dhifo waa 54 eberta la tuura marka rabta inaad soo heshid 6 la soo dhiftaan waa 6 ku dhifo eberta 9 kun baa tuuray waxa tuuraysa eberta إبركم باتوريسا لحسق على كل فوق ساس وكل من يكون تاني أفر واسدا وأنا حسوستا جورمة 10 سنة كم بشكل
والله اللي بيته وصلنا كور به يا ابو شاد بريغو نو معني ودي ابو شاد وانا خشدنا ودنك سو خدي يوتيوبوري السلام عليكم معلم عليكم السلام maadaama hadda lix ku taalo mararka qaar lix ku ulna dhici karta marka baromsaha marka la xisaabinayo saddexda kore oo soddonka saddex lagu dhufanaa 9 waaye kadib wixii lagu weydiiyaa kusii dhufanaysaa saddex ku dhufan 9 waxaa laga yaabaa hoostaan inaysan xataa ahayn moogtahay inaysan 9 ahayn dhici karta 60 tahay ama 70 tahay moogtahay laakiin waa la isku dabal laga dhigaa lambarka kore oo hore lagu siiyay asaga la isku dhuftaa saddex lagu dhufanaa 9 ka bacdi 60 mitro lagu weydiiyaa kusii dhufanaysaa haddii 5 lagu weydiiyo haddii 4 lagu weydiiyo wixii markaas lagu weydiiyo laakiin anaga wuxuu nagu yidhi odaygu gawaacidka haddaad doonaysaan buuggan maaragtay theoryga ee meel walba yaalla ee swedishka kaasaad la soo degaysaa saddexdii baabuuraan idiin soo kala sawiray midna 30 ku socday midna uu ku socday 60 midna uu ku socday 90ka kuwa uun baabad ka tixraacisaayo markuu 30 yahay intaa uu yahay baad ku dhufanaysaa markuu 60 yahay intaas ku dhufanaysaa markuu 90 inta badan 120 kuma yimaado iyo waxa laakiin saddexdaas u baahan laakiin marka la xisaabinayo maxaa la dhahaa baromsaha ugu adag kuwa kale asaa ka adag marka asaga waxa la yiri waxa laga yaabaa in ay noqoto dabrurbo markaad xawaaraha ku socotid lugaha baawar kugu xiran inuu baraf jiro inuu roob jiro marka mar walba waa dabala laga dhigaa waa la isku dhuftaa lambarka laftirkiisa la isku dhuftaa kadibna haddii wax lagu weydiiyo jiraan waxaas lagu sii dhuftaa ما شاء الله aad baad mahadsan su-aashan waxay ku saabsan tahay waxaad shiidhay vegmarke wadaya meel yaalla vegmarke matalan vinig spligi ama calaamadii xaqmalihidii ee meesha ku taalay ayaad shiidhay waanu dhacay war hadda eeg ilaa halka wax lagu tusayo ilaa miyaad iskaga dhaqaaqaysaa oo waad soconaysaa waad ka shaqo tegaysaa waajib baa kaa saaran baa lagu yidhi maxaad samaynaysaa duha rocket shoroneer etveg market waxaad ku dhacday oo aad dhulka dhigtay veg market ama calaamad baad okaaninta kheel fasata ub det yen laakiin adigu sideedii dawma taagi kartid baa lagu yidhi siday ahayd miyaad ka dhigi kartaa ila waxa laxamad baa haysay laxamad bay u baahan tahay oo wax lagu giijiyo u baahan tahay duyoor fa dukaan waad samaysay wixii aad awooday for a det inta iska biliir problem for trafficking si aanay gaadiidka wax dhibaataa u keenin adigu waad yar toosiso waad yar habaysay oo waxaad leedahay gaadiidkeena hadday jiifto gaadiidkii bay cawaraysaa u kacaysaa ama taayirey banjarinaysaa su-aasha loo jeeda ugu badani waxa weeyahay masti duyoora nogot meer wax intaa ka siyaadaa miyay tahay inaad samayso su-aashu labaa yooya tanna waa yo tanna waa yo labadan eeg tanna yo tanna yo tanna waa nay marka labadan haddaba faraqa u dhexeeya waa maxay yo masti contacta boolice waa inaan booliska waca eller ama densom set up market ama ka dhulka maaragtay kuwan dhulka dee ka shaqeeya ee qodax ee dhiga ok medela vatsom harant waxaanan u sheegayaa siday wax u dhaceen faraqa u dhexeeya markaa eeg kanna wuxuu yidhi yo masti contacta traffic farmaakhuunen waa inaan la xidhiidhaa qolooyinka ay khusayso iyo dan leokala radio stakhuunen iyo gaadiidka kuwan raadioga maaragtay waa inaan la hadlaayo waxa ay kuma khusayso ta saxdaa waa taase taa raaxa halkan maalin dhaweyd baan soo dhigayay waddadan laakiin dadku aad may fahmin waddadan hadda waa dhebel laakiin inta badan waddadan iminka 400 mitir kadib wataa waddadu way isu imanaysaa halka hore iskugu imanaysaa markuu calaamadda 400 yidhaahdo kadibna calaamadda kale halka ku taala waa halkii iskugu imanayeen
markaa gaadhigan inta badan haadkan cararaya bidixda cararaya wadadii baa ka yaraanayso kan baa xaq yeelanaya marka halkaa markay isku yimaadaan kani wuxuu ku qasmayay gaadhigan wadadu ka dhamaatay bidixda inuu soo daayo laakiin intaynaan labadan calaamadood 400 iyo taaba ka fakirin waxa ka sii horeysa calaamad kale oo dhacaysa oo leh marka hore wadadu waa hal kaliya calaamada muddo badan baa laysa soo daba soconaya 2 kilomitir ama 3 kilomitir dabadeedna marka inta ay soo daba socdo ayaa waxa ku soo qormaysa wadadan dhinaceeda calaamad cadaan ah codka xidha iyo kamarada baa dadka soo galayo codka iyo kamarada xidh walaal haddaad soo gasho oo hore weligaa u gelin isku day inaad nala jaan qaadi karto ilan qofna kuma soo dhalane codka xidh codku waa ka waxa ku yaala microphone yar hortaada yaalo sameecada ega saar ku dul dhifo 2 jeer ama mar in haddana dhinaca kalena fiidiyogaaga 2 jeer saar ama mar labaduba way xirmayaan egas baa ku qormaya marka wadadan waxyaalaha lagu xafido waxa weeye 2 kilomitir ama 1 kilomitir iyo bar waa isdhaafi karaa baa la leeyahay markii hore hal bay ahayd